Kusoo dhawaada muuqaalkeena maanta. Muuqaalkan aan kaga hadli doono dunida basaasnimada. Muuqaalkan waxaan kaga hadli doonaa sidii xayawaanada loogu tababaro basaasnimada. Haddii taa markii kugu horeysa aan soo booqato waxaan ku leeyahay aad u mahadsan tahay la jooga booqashadaada. Waxaan ku leeyahay waxaan rajeynaynaa inaan wax badan kala faa'iidi doono. Hadda hore nala joogto waxaan ku leeyahay waa ku mahadsan tahay la joogaada. Muuqaalkeena maanta waxaan kaga sheekeyn doonaa xayawaanada sida loogu tababaro basaasnimada. waxaan ka sheekeyn doonaa noocyo badan oo xayawaano ah sida dolphinka, waxaan ka sheekeyn doonaa shimbiraha, sidoo kale jiirarka. Noocyo badan oo xayawaanaha ayaan ka hadli doonaa. Haddaa hore u aragtay in eeyaha loo tababaro inay baaritaanada sameeyaan oo meelaha baaritaanada ay eeyo ku aragtay, waxaa jirta in loo tababaro xayawaanada sida jiirarka. Waxaad weydiin doontaa sida jiir loogu tababari karaa inuu basaas noqdo. oo way dhacday waxaan ku leeyahay ma ahan qiyaali laga sheekeeyahay laakiin waa wax dhacay oo waxa loo isticmaalay dawladda Iran. Haddii aad wararka la socotay arka ayagoo qiraha in loo isticmaalo jiirar si ay ku arkeen ayagoo meelaha ay ku sameeyaan hubka nuclear-ka. Marka ma ahan waxaan ka sheekeeyahay maanta wax qiyaali ma ahan, waa waxyaalo waaqici ah oo dhacay. marka xayawaanadan hadda aan soo sheegnay sida dolphinka, shimbiraha, jiirarka, eeyaha, yaanyoolaha way badan yihiin waxyaalaha loo isticmaalay inay basaasnimada ka soo waramaan. Hadda markii la dhaho maraakiibta badda joogto kale way adag tahay in bani aadan loo diro oo meeshaas uu warbixin ka keeno maraakiibta badda taagan. taasoo kale waxaa loo tababaraya xaasiyada iyo dolphiniska, malaayada, kuwaas loo tababaraa oo tababarkooda marka waxa waaye waa loo tababaraa. waxaa kaloo lagu xiraa kaamirooyin, suuman waxaa loo xiraa kaamirooyin ay ku xiran yihiin oo waxaa loo sii diraa marka waxaa loo diraa meeshii markabka uu joogay si calashan kaamirooyinkaas iyo sameecadahaas lagu xiray ay warbixino iyo wax uun looga faa'iido. jiirarka kale waa loo tababaraa inay galaan xeryaha ciidamada ay degan yihiin oo markaas jawaasiista ay ku adag tahay oo kale inay galaan oo kale. qalcadaha shimbirahana ayaga waxaa loo tababaraa ay muhiimkoodu tahay in qolalka hoteelada ee shirarka ay ka dhacayaan ay ku kulmayaan basaasiinta oo kale in ayagan loo tababaro si daaqada qolkaas shirka ka socdo kale ay u soo dhigaan kaamirooyin ama makarafoonno oo xogta iyo warbixinada laga ogaan karo. muuqaalkan marka wuxuu ku wajahan yahay maanta muuqaalkaas. markii hore bilowga hore basaasnimada waxaa loo tababari jiray bani aadamka si warbixinada iyo waxyaalaha loo baahan yahay loo ogaado. laakiin baahiyaha jirtay oo ahaa kuwaan soo sheegnay sida in maraakiibta taagan xog laga ogaado ama qol shirka dhacay xog laga ogaado kale ay adag tahay shimbiraha loo tababaro in kaamirooyinka iyo mikrofoonada ay qaadaan ayna soo dhigaan meelaha loogu talagalay ama meelaha cayiman ee markaas la rabo in xogaha laga ogaado. waxaa jirta in dowladda Mareykanka ay malaayiin dollar ku bixisay mashruucan ay dhowr nooc oo kala duwan ee shimbir ah ay tijaabiyeen sida dolphiniska uu kamid ahaa oo kale noocyo badan. laakiin markii dambe shimbirka ku guuleystay uu noqday shimbirkan loo yaqaan gorgolka. sababta uu guuleysan ay ahayd in uu calashaan caqligiisu aad u badan, xasuustiisu aad u sarreyso iyo jooga duulimaadka uu ku joogto oo ku duuli karo oo ka sarreeya shimbiraha kale. haddii xilliga duufaano ay jiraan oo kale ama xilliyaha qabowga daran uu dhacayo kale inuu jawi aad u sarreeyo uu ku duuli karo. taasoo ka saaciday inuu noqdo shimbirka ku guuleystay tababaradii si ay Mareykanka ku soo boqoleeyeen ay sameeyeen. waxaa jirtay mar in dowladda Norway 2018 in dowladda Norway ay heleen nibiri ay ku xiran tahay kaamirooyin sun kaamiraha oo dhexda kaga xiran yahay. markaasna ay ku eedeeyeen inay soo dhigtay dowladda Russia. mar waxaa jirtay sidoo kale dowladda Iran ayadana ay eedeeymo ay yuhuud inay u jeedeen oo maleeyahay ay dhahayn meeshooda xaruntooda bacriminta nuclear-ka ay ku heleen jirar sirdoon ahaayeen ayagana basaasiin ahaayeen ay ka heleen meeshii bahalka uu ka socday bacriminta nuclear-kooda. marka ma ahan nolol qiyaaliya ma ahan, way dhacdaa. marka waa qaab nooc gooni ah oo tababar ah oo xayawaanada la siiyo waana waxaa isla hadda way fududahay laakiin malaayiin dollar dowladaha kaga baxda in mashruucaas ay hirgeliyaan ama uu calashaan
oo u hirgalo malaayiin doolar kaga baxdo in shimbirka loo dhiibo kaamiro uu qaado xarun cayiman soo dhigo oo loo dhiibo microphone xarun cayiman soo dhigo malaayiin doolar dowladaha kaga baxdo inay tababaraan laakiin markii maanta laga sheekeeyahay waxay ku eg tahay just wax qiyaali ah markaas salaada li atimay muuqaalka inaan intaan kusoo gabagabeeyaan rajeynaa mahadsantihiin soo dhawaada hadda tamarkii kugu horeen soo boqoto waxaan ku leeyahay waa ku mahadsantahay haddaa hore noo joogtane joogada waa ku mahadsantahay soo dhawaada muuqaalkan intaan kusoo gabagabeynayna